daawadayaal caawa barnaamijkeena waxaad ku daawan doontaan madaxweyne Farmaajo oo gaaray xarunta madaxtooyada Soomaaliya xilli uu jiro khilaaf culus oo u dhaxeeyay Jawaari iyo Khayre. Faysal Cali Waraabo oo ka hadlay khilaafka u dhaxeeya Jawaari iyo Khayre. Sacuudiga oo 70 sano kadib ogolaaday in dalkiisa ay kormarto diyaarad ay leedahay Israa'iil. Waa maxay sababta? Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ka hadlay qaraxii shalay ka dhacay Muqdisho iyo Trump oo eriyay la taliyihiisa dhinaca amniga. aan ku bilownay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta dib ugu soo laabtay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya kadib ku dhawaad 2 toddobaad oo ka howlgalay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Muqdisho. wararka laga helay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaysa in madaxweyne Farmaajo uu waanwaan ka bilaabay mooshinka Jawaari isagoo kulamo la qaatay dhinacyada hormuudka oo ah labada dhinac ee isku haya mooshinka kalsooni kala noqoshada gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya inuu socdo qorshe lagu qancinayo gudoomiye Jawaari oo ku saabsan inuu xilka baneeyo iyadoo aan wax loo baahan in cod lagu kala baxo, taasina uu wali diidan yahay Professor Jawaari. waxaa arintan ku dhex jira xildhibaano caan ah iskaga dab qaadaya labada dhinac, waxaana arintaasi keentay iyadoo xukuumadda iyo madaxtooyada ay garowsadeen in dhaawaca siyaasadeed oo ka weyn iyo xaalad halis ah ay ka dhalan karto haddii qof iyo cod lagu kala baxo. dadaalka waanwaaneed ee socda oo qayb uu ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan la ogeyn inuu guuleysan doono, iyadoo gudoomiyaha baarlamaanka oo culays ay saareen taageerayaal iyo xildhibaano iyo siyaasiyiin caan ah oo ku qasbaya inuu weli xilka sii hayo. boqortooyada Sacuudiga ayaa ogolaatay inay hawadeeda maraan diyaaradaha u socda ama ka yimaada Israa'iil. arrintan ayaa ah markii ugu horeysay ee dhacdo muddo 70 sano ah oo ka dhigan intii la dhisay dowladda Israa'iil oo dhulka Falastiin xoog ku haysato. sanadka 2018 diyaaradii ugu horeysay ee adeegsata ayaa noqotay diyaaradda Air India oo ka timid New Delhi una socotay magaalada Tel Aviv iyadoo dul martay hawada Sacuudiga. waxaana arrintan mid taariikh ah ku tilmaamay wasiirka socdaalka Yuhuudda. diyaaradan ayaa nooceedu ahaa Boeing 787 waxayna xalay sagdi dhexe ka hor ka degtay magaalada Tel Aviv iyadoo arrintan lagu micneeyay Sacuudiga oo si weyn ugu dhawaanaya dalka Israa'iil kadib markii dhaxal sugaha cusub ee dalkaasi uu soo rogay isbeddello waaweyn. dhanka kale hogaamiyaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa si lama filaan ah shaqada uga eriyay mid ka mid ah tiirarka ugu awood badan maamulkiisa. war qoraal ah oo soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay inuu ku casilay la taliyihii amniga qaranka Mareykanka ninka lagu magacaabo Herbert McMaster kana mid ah xisbiga Jamhuuriga. sargaalka la eriyay ee xilka qaadistu waxay ahayd mid lama filaan ah waxaana lagu bedelay John Bolton oo ka mid ahaa saraakiishii la soo shaqeysay maamulkii George W. Bush. warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in eriyada Herbert McMaster ay dhabarjab weyn ku tahay siyaasadda lagu maamulo aqalka cad oo 14 bilood ee lasoo dhaafay wajihiisa kulkulatooyin. la taliyaha cusub ee amniga qaranka Mareykanka ayaa horey u soo noqday safiirka Washington u fadhiya xarunta waxa loogu yeero qaramada Midoobay. sidoo kale wuxuu ka mid ahaa dagaal horiyaashii dhanka diblomaasiyadda xilligii George W. Bush. saxafiyiinta ayaa talaabadan u qaaday Trump ku tilmaamay mid iska xornimo ah marka loo eego qaabka uu u maamulayo waddanka. ma jirin wax wareegta uu soo saara markuu xil magacaabayo iyo markuu mas'uuliyiin casilayo, balse fariimo uu ku faafiyo baraha bulshada ayuu u adeegsadaa xilka qaadista. arrintaas oo lagu sifeeyay fadeexad dhanka maamulka ah. isbuucii la soo dhaafay ayuu eriyay Rex Tillerson oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda xilli uu boqosho ku mariyay qaar ka mid ah wadamada dhaca qaaradda Afrika. eriyada Herbert McMaster ayaa ka dhigan la taliyihii saddexaad ee dhanka amniga ee uu Trump waayo. horey waxaa isku casilay laba la taliye oo ugu caansanaa Michael Flynn oo ku lug lahaaday fadeexad ah faragelinta dowladda Ruushka oo ay ku sameysay doorashooyinkii madaxtinimada dalka Mareykanka. Sacuudiga iyo Imaaraadka oo degdeg ah ka soo saaray qaraxii ka dhacay Muqdisho. wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa muujisay cambaareyn xoogan oo ku aadan qaraxii ka dhacay kasoo horjeedka Hotel Weheliye ee ku yaala inta u dhaxaysa isgoyska Tabka iyo Sayidka. gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay oo ka keenay ismiidaabiye ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa beegsaday goob ay ku shaaheynayeen dad shacab ah
oo waxba galabsan, halkaasi oo uu ku dilay dad ku dhow 20 qof, halka tiro intaas ka badan uu ku dhaawacay. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa waxaa tacsi loogu diray dhammaan ehelada dadkii ku naf waayay qaraxaasi, wuxuuna Sacuudiga sheegay inuu xoojinayo taageerada dowladda Soomaaliya gacanna uu ka geysanayo dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta ayaa si xooggan u cambaareysay qaraxan, wuxuuna Imaaraadka dadkii dhintay Alle uga baryay inuu jannadii Firdawsi ka waraabiyo, isagoo caafimaad degdeg ah u rajeeyay dadka dhaawacmay. Sidoo kale, Imaaraadka ayaa sheegay in Al-Shabaab aysan marna doonayn inay noolaadaan shacabka Soomaaliyeed, taas beddelkeeda ayuu wadamada beesha caalamka ka dalbaday in la kordhiyo taageeradii la siinayo Soomaaliya. War Shabaab ay kusoo qoreen baraha bulshada ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxay ku sheegteen mas'uuliyadda weerarkan. aan kusoo gabagabeynay ee gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Faysal Cali Waraabe ayaa ka hadlay khilaafka xooggan ee u dhaxeeya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Faysal Cali Waraabe mar uu wareysi siinayay TV-da ka howlgala Somaliland ayaa wuxuu hadalkiisa ku bilaabay sida tan: waxaan Soomaaliya ma jirto iyada ka kuba imanaya isku imanaya waan ka xishooda marka halka Jawaari ka yaraa farmaajo ka yaraa ragaasi rag wadda kara maaha, rag Soomaali isku keeni kara maaha, rag midayn kale Soomaali Italiya maaha, waa iska ciyaalka magaranaysaa lacagta urursanaya guri isku diliyaan. mid wuxuu ka socdaa mid wadda buu shaqeynaya wax dan qaran ka shaqeynaya dan qaran inaga u dambeeyay kuwa abuurna reer Soomaaliya siyaasiyiintooda qaranimo afka ka yiraahdo laakiin ma abuurna ما مقانا واسلقان أنا وقت كل شيء شرني ما حد عنتاميج أنا حدا ميج أولي ده حيوقون إيه مكان واحد من يقول ما يعني إن كان يكون عضو بس كار ما كفر يجي الدولة تيانا كملت جهان إنه كل شيء إنه أيه سبحانه وتعالى ظلمي بربري إنه كأت كان أفرتين أنا هذا وده مدحوله هنا إنه واحد من يقول ما يعني لكن وين بديه هجاتنا daawadayaal waxaan halkaas kusoo gabagabeynay barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee aan kusoo qaadanay wararkii ugu dambeeyey ama ugu waaweynaa ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. daawadayaal ha moogaan inaad noo subscribe garayso channelkeena Garqaad haddii aad doonayso wararka degdega iyo warbixinada caalamkaba. daawadayaal waxaan kusoo gabagabeynaynaa hees ka mid ah heesaha uu qaado fanaanka caanka ah ee Xasan Aadan Samatar, heestaas oo magaceeda la yiraahdo Wardheer. Doorsiyo shiiba كدوسري هوينكو أنا كيكي دحبحو أصلا يا إني دمستراي فنانك دوسني يشيبا كدوسري هوينكو جاعيكو دميو كبشر كدوتي ومدقني العاشقة هنا سوداوي Kumarila